xaaladda dhalinyarada kooliistayaasha ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay tahay mid si aad u liidanayso maalinba maalinta ka dambaysa kuwaasoo intooda badan ay saameyn ku yeesheen dagaalada had iyo jeer ka dhaca caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. dhalinyarada ayaa markii aad booqato goobaha ay ku nool yihiin waxaad halkaas ku arkaysaa iyagoo gacnaha ku sito caagada ay ku jiraan koollo isla markaana ay ku isticmaalayaan ayna ku sheegayaan in cabidda koollada ay ku raaxaysanayaan. xarun ay dhawaan isgoyska kilometer fero ee magaalada Muqdisho ay ka sameysteen ayaa waxaa booqday telefishinka caalamiga ee Royal si wax badan ugu ogaado xaaladooda nololeed. intii aan ku sugnaa gudaha xirada ay sameysteen dhalinyarada kooliistayaasha ayaa waxaa halkaa kula kulmay caruur ay da'doodu aad u yar tahay kuwaasoo ii sheegay in cabidda koollada ay igana qayb ka yihiin. deeqo Caamir oo ah wiil 12 jir isla markaana ku sugan dhalinyarada goobta ay ku sugan yihiin ayaa waxa uu sheegay in daadiisu ay aad u yar tahay isla markaana ay ka muuqato muuqaal ahaan. waxaana sidoo kale ii sheegay inay jiraan caruur lamid ah isaga oo caba koollada kuwaasoona iga warramay xaaladooda nololeed iyo sida ay ugu nool yihiin xarunta ay sameysteen. ana hada waxaa ku noolaa lambar 4 ku noolaa inta wala bilaa tala dhawaa ku arko wala baahi iyo dad wax isyaamala bin aadanka naxaasado ay hadda markii inta waxaan muuqaal ahaan kaaga jeedaa inaad isticmaalaysid koollada marka koollada dadka isticmaalaya maxay ka bedelan yihiin dadka kale kuwa waxay saareen markab ay fuulaan diyaaray fuulaan naag ay aroos naagtooda ay markab ka soo gameen wala inta wax aan gaalo male wala nolol oo caafimaad iyo warshad waxbarasho ma geelan waxa uu baaqa walaaladeeda dal joogan dad kale waxa uu baaqaya inay waxbarasho ay geliyaan ay maxaa marka hadii dadka hadda inta ay ku siiyaan waxbarasho oo iskool Muqdisho lagu geeyo noloshaada la bedelo ma ahaanaysaa mid si toos u barto ma sidii ay ugu soo laabanaysaa goobta hadda ku sugan tahay hada dib ma u soo laawanaadi wax li qabtaan aniga Soomaali lambar 4 ku noolahay mas'uul ya gaajayso ay دربي جيفاسك دربي لاسك جيفان مال كلمة أي مركب محاكرة استعماشة أو راشين أما جوري أدوه يوتو أما وحبرشوا أد هاي ست محاكم ده بتسع حتى أنا جا دربي جا سعداني ما شيء أركاس كسعدان هذا نلعب ملعب عيال لا واحد كاسو جار مركب يا لا واحد حقه كاسو جاري وفر لوحة أي فرق أنت واقع معناها أنت يكسرون المركب فرق وبدعه وتصع مدرس جدار دعوة هو براندرا ودي مركب حي شيكتان الله شاكو نوشا يقول لي وحا أنت بدنا عاد استعمال شو مركب ماشان عاد جوكت أنا ماشى واسكجوا لجاجب تشي ماشى ونعس عروة الناس كابتن أي مركب بد سوماليد محاو باقيسا يا بد سوماليد محاو باقيسا إن نوت في عنا لا وركض في عنا أي مركب على ركتو ويل كل ميدا أو جاء ده إيه أو إسكول سعدو محاضرين كوسيلون غنيا وحناخ عيلونا أي مركب محاد إسلام مركب ويا أبغى يكونوا ليان وإذا بس سجلتان أي أبني هو أنت كود نورين معناها معلومة وإذا جوعان وسمى جوعان واسفران dhalinyarada ayaa muuqaalkoodu waxa uu yahay mid si aad u liidata markii ay intooda badan xilliyada maalintii ay iska badiyaan cabidda koollada kuwaasoo qaarkoodna aysan bakici karin markii aad aragto waxaana dhalinyarada intooda badan hadii jeer ay isku dhacaan markii ay cabaan koollada maadaama intooda badan xiskooda uu tagayo waxay qaarkood ii sheegeen in dhibaatooyin aad u xoogan ay kala kulmeen intii ay ku sugnaayeen xarumaha koollada lagu cabay ee magaalada Muqdisho halka qaarkood bay ii sheegeen iyaga iyo waalidkoodna isugu soo dhaceen cabidda koollada iyo xashiishka isla markaana ay ka soo gadoodeen waalidkood si ay u helaan xashiish iyo waliba koollo joogta meel ay ku cabaan taasoo ay sheegay waalidkood inuu san raali uga ahayn isla markaana ay sidaa uga soo tageen الله محمد عبد معلم ما حقول اسبيتال تكفر هويدي حبيبي دبت آذن هلول الله أي هالكي كنوا شهويدا عاصمة إسلي نيروبي كنوا شيء صلاح أي هذا أديك وحبرشة ما شيء ثاني مركز دار هذا أديك وحبرشة هويدي أبي وكهلا لكن شخصان نمو عسوالتين نمو أو شيطان يران أو سعر أنتي كنت مركز هذا هوي أنت حلقي كنوا شهي ما يصير تكون أوجش هدي أدي بقول لعبة تقول جدي هويدي وحوي أكلت وإسحافة نيروبي إسلي وأوراعي لكن شخصان نمو إيو بلود كل بريطانيا وصو عرر لكن حتى إنا إلهي يمدوبي وحبت تنبو ونقنن وحالتان إيو كل عبو تنبو أرجينا هاي مركي هذا عد مجالة مقصود أحمر يسوع دركت عرور وطوب واق يقدر يونفورما سلا مركي أنا أسعد إسكول درينكا وشلون نقنيا
ترنتي وعيلونا لكن هويدي أبي سو حسوستا hadda marka maxaad ugu baaqaysaa hooyada iyo aabaha iyo dhammaan هويدي أبي maxaa ugu baaqa inaad dambe sida hadda ka hor Nairobi ii wate oo haddiina ii wate hataa ii wato dambe inaan u noqonin aniga caalkamiin baa ku dhashtay magaca Ayuub Cabdullaahi Ibraahim baa la yidhaahdaa lambar 4 baan ku noolahay hooyadii aabbe ii madanaya aabbe ficil khayr baa igu sameeyay maal aniga dantay kama fikir asna igama fikir aan igama fikiro marka wax soo cararay hooyadii aabbe ii madanaya lambar 4 iska noolahay silaayn saxriita هيا هذا مركز نولشها كنا شاي محاكم مذي نولشها كنا كل عبا سيارة عبا حشيشة عبا جالا عنا وحا اشتمل كنيني عبا حديا حنوصلنا ضد نودنا مالي إلهي كسكو marka hadda hadii maadaama aad xashiish cabtid oo siyaar cabtid soo nolosha mid xun ma aha soo kama wanaagsan inaad iska dhaafto oo aad dib ugu laabato hooyadaadii iyo aabaha ku dhalay waan rajeynaa laakiin hooyadii aabay madana maxaa uu laabanaa sharciga uu tay karaa hay marka magaalada Muqdisho shaqooyin badan ayaa yaalo marka laga tago inaad koola cabtid ama xashiish cabtid maxaa dhacay maxaad u shaqaysan weysay oo shaqooyin yareed magaalada gudaheeda ugu raadsan weysay arasi laakiin oo suudayn waa noo suurtagal istuugi wax asbal noo socayna qurbaadkiis baa lagu soo garaacay ma xasmay karnaa hadda adiga wali hadda adiga daada jirtid ilaa iyo iminka ma jiraan wax waxbarasho aad waxbarasho laakiin baba ay gubtay waxbarasho iskuul laakiin soo daadeen waa 17 sano xilligii aan booqanay xarunta dhalinyarada ee kooleystayaasha ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ahayd goor banqa oo ay intooda badan dadku ay ku wajahanayeen quraacda hasa ahaatee dhalinyaradaasi ma haysan wax ay ku quraacdaan iyagoona soo bandhigay ama ay soo hor keenay jaad ay sheegeen in xilliyada habeenkii ay ka soo ururiyaan gudaha magaalada Muqdisho gaar ahaan garaab ahaan ay u soo ururiyaan isla markaana subaxii halka ay ku cunaan waxayna ay sheegeen in qaarkood ay tagaan xarumaha lagu qaybiyo cuntada bisil ee magaalada Muqdisho isla markaana laga soo eriyo sida ay sheegeen oo qaarkood waxay inta ay raaciyeen in dadka reer Muqdisho ay ku jeesjeesaan waxay noo aastaan koolada afkuhayn iyo jaadka aan cuneyno dad xumo masaakiin ana wacan waan yastiin ibilayle yastiin ay noo qabaan ay noo cishteen masaakiin maniina indeen loolay aab ay leeyahay xoolo dadka leeyahay waa kana gala orda soo qaada xoolo oo fiicnaad anaga xoolay baabka si jarnaa inaga dhigtaa markuu u horeeso ilbaabka isdaabtad mar korno gaar aad markay wata wana fanjoaya baawrka inagu dhufaan tubareek alkulistiya ay leeyihiin yastiin leeyahay أنا إلى جيس تمنين وعس مساكين نقني إلى وعس مصغر وعس إلى نسين موين ما انتصار هدينو ديدان ومن منين هدين نسيان وعس إلى نسوخ هذا واي أي مركز أنت بدن صورت وحشيت إن لاقى ضدك حولها عليه ما تسي ميزان هان مركز فيرسو ضدك حولها سوت الله صينا أودك اللي يقول ديدا معناه محيطه أنا إلى هذا يمكن أن كل أنا غير قلبي أنا معاه كراد عيني أنا دكسي صار بالقياي إن أولا أي كتام حلولي لا يقدي مرك سوماليا ما حقو باقي سوماليا إذا وحن أو باقيا قفل قفكي دب ما أنت دبات لا عاستو لله إلهي وان إن دبات إسقرجارة إلهي عير سبحانه وتعالى إسقرجارة الله أنه يدين قرجارة وبري أي وبري ده ما يقصنا دادي كنتني سدح إلا هالكاس أنت وجرت إلا هالكان أنشوجي هي مركز كورن حالة ضدنا ولا هذا نلاش إلا هذا ولاي دبي كجرتا وحي وأوجدا مركز هذا ما حد باقي شيء ضدك دقالة هايست ضدك دقالة هايست وحا وباقي إن صعبيان ولا لنا جرجارك هي هذا ماشى جوكتان وحقتل في دولة كمال جارك الصومالي دولة كمال جارك inay soo caawiyaan wax inay noo qabtaan tan iyo intii aad joogtay meeshan ma jiraan ay ma jiraan wax ma jiraan urray iyo wax ida caawiyo oo wax idin keena maya waxyaabahaas dhan ma jiraan ina meel dhistaan noolahay aan dhisanay aan nalka burshay haddana ماشي دبا قشن خب كدكتي
iyadoo ay jiraan dhibaatooyinkaasi faraha badan ayaa haddana qaar ka mid a dhalinyarada intooda badani waxay ii sheegeen in dhibaatooyinka haysta aan la soo koobi karin hase ahaatee aysan toos u helin adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo nolosha guud ee magaalada muqdisho dadka intiisa kale ay haystaan intii aan ku sugnaa xarunta waxaan ku arkay wiil da'diisa igu sheegay 18 jir isla markaana ka mid ah carruurta kooliistayaasha ee magaalada muqdisho kaas oo dhaawac kaga yiilay qaybta dambe ee dhabarka isla markaana uu ka soo gaaray xilli uu ku sugnaa degmada Madiina ee magaalada muqdisho waxaana ii qeexay inuusan helin adeeg caafimaad oo ku wax looga qaban lahaa dhaawaca jismigiisa ku yaala dagaal ku gashay buulxuubay marka ma jiraan adeeg caafimaad oo heshay ama cid wax ku qabatay ama cid ka damqatay dhaawac ku soo gaaray maya ay tani markii dhaawacmatay inta ay iska joogtay ay marka wax daawo ah iyo wax dhashana ma laha maya daawo inta ku noolaa ay marka ay qashinkaana iska dhaxay ka waran markii hore noloshaad ku jirtay iyo hadda goormaad soo beertay noloshaada 2 sano oo ku jiro 2 sano markii hore intaad ka imaatay halkaas ku dhaatay Sacuudiga ayaa ku dhalatay hooyadii aab halkii ku sugan yahay ay ka waran hadda noloshaada iyo nolosha dadka kale ay ku jiraan sidee farqiga u dhaxeeyo ma dareemi kartaa farqi weyn oo ay sharax bal farqiga u dhaxeeyo waa noloshan ay marka ma jiraan tijaabooyin kale ama dareemo kale oo aad samaysay oo ku aadan inaad heshay ganacsi ama aad bilowdo shaqo ka bilowdo gudaha Muqdisho hoyga ay ku nool yihiin oo ah mid aad u xun ayaa markii aad booqato halkaasi waxaad ku arkaysaa dhibaatooyin fara badan oo ay ka mid tahay inaad shakhsiyan adiga aad ka cabsato markii aad aragto goobaha ay ku nool yihiin gaar ahaan meelaha ay habeenku ku hoydaan horjoogaha dhalinyarada kooliistayaasha ee magaalada Muqdisho ayaa telefishinka caalamiga ee Royal uga warramay qaabka ay intooda badan ugu nool yihiin waxa uu xusay in dhibaatooyin xooggan ay ku haystaan gudaha magaalada Muqdisho ka oo tusaale ahaan u soo qaatay dhawaan mashaqo ka dhacday isgoyska Banaadir halkaas oo uu sheegay inay ku geeriyoodeen 5 ka tirsan carruurta kooliistayaasha isla markaana aysan jirin cid isweydiisay halkii uu dambeysay dhalinyaradaasi dagaalkii daraad ayaa ka mid ah oo qaar noogu dhimatay qaybna hadda ee jiifto tuure laga taagay ee meesha jiifaan ee ordaan ayagoon waxba qaadanin waxba aan xadin oo la dhahay tuuga baateen ninka hadda cayaalkan oo siiba garabka oo ugu lahayn waa jiifaa hadoo maanta oo fadhilaay gooni bay ahaaleed weena arki doonaan hadoo ilaahay 80 iyo 90 yaa kama yarina anaga ilaa ay boondada laba qeybaana laba boondada iyo saalada la kala boqol kama yarina anaga daartiino cadeen ayaan idin tuseena intii hore ninkan doowana waa marqaatiyo ka ilaa darayaalka qayb qaraab ku kalmaqayeen qayb waa iska uriyaan yaa qayb amar weyn jiraan marka maasanid way jiraan dad badan aniga ay naga maqan yihiin ee waliba ee wax noo qaban jireen ay naga dambeeyaan sida waalidiintooda kale ay noo muujin jireen oo naxishmeenay oo naga wada maqanaa jirta ilaahay oo naxariis sida maska madoowa ka mid ah wax badan ka mid ah sida carabshiika weyn nin la dhahay waa naga dhintay dagaalada ku dhintay dad badan ayaa dhintay ma fahamtay wiilal waxa ka mid ah anaga nagu jiro oo naga dhaxbaxay oo hadeer oo gooni naga naqday xamar weyn jiraan alxamdulillah oo dhaawac ay dhimasho wax lagu tilmaamay aan leenahay oo iska dhaawacan oo nagu dhex jiraan jirta hadana waa idin geenina hata dadkooda dhaawacan idin tusina cadeentooda waxaan ugu baaqaynaa walaaleena hadayba wax noo qabanaya nolosheena iyo waxbarashadeena iyo aqoonteena ilmaheena aniga aan isku wareersanahay balwadiyoon u go'nay inay ilaahay naga soo celiyo ay naga soo laabaan waxbarasho oo anaga noo gaar ah ee noo sameynayaan sida waalidiinta aan ku soo xasuuso leen ayagana aan ugu soo xasuusaneen inay wax noo qabteen walaaleena Soomaaliyeed ayaan ugu baaqayaa dalkii dibadda wixii jiraba Ibrahim Saciid Xasan oo ah horjoogaha dhalinyarada ayaa waxa uu inta igu daray in markii ay cabaan koolada ay si weyn ugu raaxaystaan isla markaana ay ka baxaan jawiga magaalada Muqdisho mararka qaarna ay la tahay markii ay dhacayaan madaafiicda in roobab xooggan ay ka da'ayaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ko dagaal dhacay in roob qubanayo umaleeya ma dareemay ilaa anaaba istiina dareemiyo dhanaaba iga maqan maxaan dareemaa xabadaan urdaa ta meeshaan u ordi lahay marka dad badan waxay aaminsan yihiin adiga waxay tiri koolada maskaxda ayaa ku jirta dad badan waxay aaminsan yihiin maskaxda ay sii keenayso hadalka dadkaas oo maskaxda oo kiciso amba ay dejiso way iska hadlayaan hadalno sheeyna qofkii sameeyay ayaa wuxuu yahay sheey kara mugtaa aniga waxay i tustaan ku dhahay hoobi markoo soo dhaxay hoobiyaas inaan ka dhax qaraabto dhaxdiisi aan dhax galo hoobiya aan ordo bal wada markay igu jirto laakiin markay ayada iga maqan tahay wax aan qaban karo malaha markaas waxaan noqonaa nin dabaala oo oday oo isdhax qaaday xoogo 4 sano daadiisana jirto oo wareeray camal oo ku taagan aan noqonaa laakiin marka ayada dhuuq waxaan noqonaa cunug 15 jir oo kale
wax walba haadka biiwa inaan wax ka dhacsi karayaan dareemaya si kastay ahaataba xaaladooda nololeed ayaa waxa ay tahay mid si aad u liidata isla markaana iminka aysan jirin cid u taagan in ay wax ka qabato iyagoo qaarkoodna ii sheegay haddii ay helaan adeegyo waxbarasho iyo weliba adeegyo kale ay ku shaqaystaan inay guud ahaanba joojin doonaan howlaha ay ku jiraan ugu dambeyntii ayaa waxa ay soo bandhigeen dhalinyarada hees ay sheegeen inay ugu talagaleen isku duubnidooda oo ku aadan hees wadani oo ay intooda badani ka qaadeen goobtii aynu ku booqanay ee xarun u ahayd carruurta dhibaataysan gaar ahaan kuwa kooliistayaasha ee magaalada muqdisho toban idaacad ayaa noo imaaday waxaa ka shaafisay Royal ayaa maanta aan nooga shaafisay wax walba ay noo qabatay cabitaan ayna siisay wax walba ay noo qabatay haddana waxaan rajaynaynaa Royal inay wax walba inay noo qaban doonto aan rajaynaynaa khayr iyo caafimaad ayaan sii rajaynaynaa Royal ha noolaato Royal ha noolaato Royal ha noolaato Royal ha noolaato Royal TV ha noolaato Royal TV ha noolaato gabdho mid baan guri sheegtay waxay tiri hanta ma leedahay gaadiid ma leedahay guri wareeg ma ii dhigi kartaa dahabna ma ii geli kartaa markaas waxaan iri kooliista ay guri daacad ma ii saam igu rabtaa baa macaanay guud ahaan daawadayaal intaa ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka oo aynu kaga hadlaynay xaaladda carruurta kooliistayaasha ee ku dhaqan magaalada muqdisho daawadayaal tani intaan barnaamijkan mid lamid dib ugu kulmi doono waa bahda telefishinka caalamiga Royal oo isku duuban oo idinkaga tagaysa sidaas iyo nabadgelyo